بسم الله نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أما بعد تلوينها رير كالبيض رقي الضمر دلنيرو عيديني عرولة انت وحان دكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت أكدب بروفيسورك يا سياسي عبد الرزاق عويل بعلول يا تلمامي وجددي أنو إدين كل نمت وكفر أحسن هاي بوغشادة وكعنا هاي إن ورقلين تيدو أي إذن كي ريت أما إلى يدو كورون يهي أنو وقتي كوبان إذن سينا إناد كس ديار قرودان أو نوغو شرقبتان وانا كفر أحسن هاي سيدا هدو صوبحدين دور غضب إن شاء الله تعالى باندول استاقيا أمنتو آمين قابن وانا حل الروبات تكوات شربينو قبن قاب سنة إني مددن با شركي إن شاء الله تعالى كبابي قويمت وفودي الشركة هذه لهيد قارنوات شرتا oo gobolka Sool ufuudi kaan babaxday ilaa yadu ku rooyahay ama Axmed Hooli fogaaminayay ama ka timid ceeri gaabo madashi waa fadhida ufuudi buu hoodle qaar saax dheer baan uga nimid hadeero ay joogan qaar kalena ilaa bari waa sugeena hadii ay baydmo ergooyinka qaar halkan joogay iyo deegaankan baaraan intii ay ku lahaayeen insha Allah ta'ala waa diyaar waana la aadaya shirka maamulkii labaad misakii saddexaad way kii saddexaad dhul bahanta yeesho xero u dhalan ah ama khaatubaba aan ilaahdo weeye SSC baa u horeysay administrationkii la samaystay aan meel kale laga soo dhoofin cid kale inoo keenin halkan maalintii aan buuro wadal ka imid halkan aan idinku shirqabtay waxaan idinku yidhi maamullo aad ka baridaan wasiir hana la siiyo ama ilaahay dukure agaasimo hana la siiyo yaa hareeraha idinka xigay oo magan iyo marti loo ahaaye waxaan idiin wadnaa maamul madaxweynaheedii idinku aad tihiin madaxweyne ku-xigeenkii idinku ah wasiirkii maaliyadda iyo ka difaaca iyo ka arrimaha guduhuba ay reer khaatumo yihiin aan baryo wasiir lagaga helin kaa weeye ka aynu dhisanayna kaa weeye ka aynu dhibkanaynu ku jirro kaga bixi karaynaa tala meel kale la inooga soo dhoofiyey waa ta halkaa ina geysay waa ta inagu kaliftay in reeraha dhulbahante la isku dhufto in wiil yar la soo isticmaalo in danteennii lagu burburiyo inka nacaska alla inagala baxo inka hunguri xumaha alla inagala baxo inka inoogu liita la inaga xuso taa meel baynu iska dhignay cadkaa cad quureed buu noqday cadaynu inagu leenahay astaysannay qaybsannay xeradeenna ka dhashay baynu insha allahu tacaala wixii haddeer ka dambeeya wax ku qaybsanaynaa wax ku noqonaynaana kaasaynu waxaynu ugu diyaarin karaynaa kaasaa wiilkeenna ama gabadheenna yar ay soo kacaysaana mustaqbal ku heli karaysaa gabadheenna maanta joogtaana ay qiimo ku yeelan karaysaa oo gabadh walaalkeed reero kale magan ama marti u yahay cidina ma soo doonto gabadha walaalkeed ama in adeerkeedu wax yahay yaa la soo doonaa haddaynaan wax kale u turayn magaceenna iyo gabdhaheenna iyo tolkeenna iyo deegaankeenna yaynu ku ilaashanaynaa insha allahu tacaalaa reero kale tala ay samaysteen dib damba u daba fadhiisan mayno dad baa meelaha waxay ka yidhaahdaan ina khaliif galayr iyo in cali garaad baa meelo u socda oo meelo noo wada waxaan u xaqiijinayaa ninna inaanaan gunnimo kula tartamayn ninkii gunnimo doonaya u baxbaxsanaya reero kalaan hoos gelayaale waa laygu haystaa waa kuu fasaxanta wallaahi waxba ku fali mayno wallaahi u hunguroon mayno
wallaahi cid kale hoos geli mayno taladaa dhulbahante ee baraxala ee aan cid kale hoos tegin waxaan ahayn waxba ku fali mayno wax allaale waxaan ahayn mid waa ka digaynaa markii la arkay talada dhulbahante ama khaatumo inaan la joojin karayn waxaa la doonayaa reeraha dhulbahante in la isku dhufto in la isu xumeeyo in dagaal la isu geliyo arrintaa ha laga digtoonaado innaga yaan la isu keen isticmaalin haddaynu innagu isdilayno waxaynu garanayno aynu isku dillo oo berri aynu ku kala bixi karayno oo aynu ku heshiin karayno oo aynu garan karayno meeshay ka timid berigii hore 2007 markii 2007 shirkii SSHDA ee laascaanood lagu qaban lahaa ee looba qabsaday anigu waan diidanaa in maamul gaara dhulbahanta loo sameeyo waxaan ka cabsi qabay war armay isku dilaan ilaa reerihii kale ee maamulada samaystayba waa isku dileene 2009kii waxaan ogaaday mar haddii iyaga la isku dilayo markaan arkay laascaanood wixii ka dhacayay markaan arkay sidii reerba reer loogu dhufanayay iska daa reeraha kale idinka baharasama sidii la isugu kiin dhufanayay ee inta jeer ee la isku dayay inaad isku dhacdaan intii balaayo kale isku kiin dili lahayd intii waxaydan garanayn aad isku dili lahaydeen waxaad idinku leedihiin aad liist aad isku dila waabad ku heshiin karaysaane hadeer waxaa la rabaa in la isku kiin dhufto maxamed garaad iyo axmed garaad la isku dhufto jaac siyaad iyo ugaadhyahan la isku dhufto xasan ugaas iyo baharasama la isku dhufto ha laga digtoonaado aad ha looga digtoonaado bal inta xaaladan aynu ku jirro oo ay inoo dhammaystirmayso bal 2 jeer ha laga fakaro inta aan tallaabo la qaadin insha allahu tacaala war wacan baanu ka maqlaynaa magaaladan waanu ogeyn berigii dhaweyd in lagu sigtay ilaahay inaga soo furtay ilaaha baaqaniyo deeq leh inagu fuqaraa baynu nahay halkan biyo la idinka helay waa maqal biyahaasi waa dhici karta xoogaa magaalada ka soo geli jiray oo baraaga biyo laga iibsan jiray in dadka qaarkiis yiraahdaan war armaa biyihiinni aad iibsan jirteen idinka xaj hor istaagtaa dadku horumarkiisa iyo noloshiisu waxay ku xidhan tahay biyaha ay haystaan adduunka ilaahay wuxuu ku kala horumayaa qoladu barwaaqaynayana wuxuu siiyaa biyo qolada uu u cadhaysan yahayna biyuhu ka ceshtaa haddii ilaahay biyo inoo furo aynu soo dhowayno biyo kuu soo kordhaa wax ay ku taraan mooyaane waxba kuma yeelaan idinka weeye kuwa laascaanood degan ee biyaha looga u baahan yahay biyaha halkan ku jira sidaa doontaan baad uga faa'iidaysan karaysaan horumarkana waxaynu doonaynaa inaynu kordhinno marka maamulku inoo hana qaado arrimaha ugu xoogga weyn aynu awoodda saarayno horumarkaa kow ka ah noloshii miyigu waa isa soo xidhaysaa ee waa kuwanoo haddeer gabdhaheennu ma oggola in reer miyiya loo dhiso magaalay rabaan in la dejiyo waa inaynu nolol magaalo samaysannaa oo beera leh oo ilaahay dukuro horumar leh oo warshada leh oo insha allahu tacaalaa aynu ummadaha kale kula tartamayno biyaha kow ka ah biyaha la soo dhoweey waxba yaan la yeelin insha allahu tacaala ilaahay waxaan idinka baryayaa oo deegaamadeenoo dhan carra khaatuma uga baryayaa inuu raxmaadkiisa samada ku jiro inoo furo ilaahu samada raxmaadka ku jiro ilaahu noo furo ilaahu adaa qaniya annagu fuqaraa baanu nahay ilaahu adaana abuurtay addoommahaagii baanu nahay ilaahu adiga waxa gacantaada ku jiraanna wada deeqee wax gacan kale ku jiraanna ma deeqaan ilaahu noo fur
ilaahu kuwa iyaga wanaagsan noogu naxariiso ilaahu kuwa iyaga yaryar noogu naxariisaan dambiga lahayn ilaahu xoolaha aadna siisay iyo noolaha kale aad abuuratay ee deegaamada ku nool ilaahu noogu naxariiso ilaahu intayada khaldanna ilaahu noo soo hanuuni ilaahay saasaanu ka baryaynaa ilaahu noogu naxariiso raxmaadkaaga samada ku jira noogu furo ilaahu ka dhulka ku jirana noogu soo saar yaa rabbul caalamiin ilaahu adaa leh ilaahu annagu waxaanu ku nahay qariib iyo kuwa gudbaya ilaahu noogu soo saar ilaahu xooluhu waa naga xanuunsanayaane ilaahu noogu caafimaadi ilaahu dumarka noogu caafimaadi ilaahu dhasha noogu wanaaji ilaahu dhallinyarada noogu wanaaji ilaahu saasaanu kaa baryaynaa ilaahu baryaanu leenahay adaa ajiibka leh ilaahu naga aqbalo noo aqbal ilaahu naga aqbalo noo aqbal ilaahu intayada xanuunsanaysa xanuunka dulqaad ilaahu caafimaad sii ilaahu caafimaad sii ilaahu caafimaad sii ilaahu intayada deymaysan deynta ka dulqaad ilaahu meel soka ka sii ilaahu risaaqadaada ballaaran ilaahu noo fur ilaahu naxariistaadaanu ku lownahay noo naxariiso ilaahu na wanaaji ilaahu qulubtayada isu soo dun ilaahu walaaltinimada iyada iyo kalgacalka iyaga istus ilaahu xumaantayada kala jeed ilaahu xumaantayada kala jeed ilaahu naxariistaada ballaaran noogu deeq yaa rabbul caalamiin ilaahu roob baraagaha iyo balliyadaba buuxiya buuraha iyo bannaanadaba hela ilaahu kaasaanu kaa barin ilaahu noo soo dedeji ilaahu noo soo dedeji ilaahu magaaladan si gaara u barakee ilaahu magaaladan si gaara u barakee ilaahu dadkeeda noo hagaaji ilaahu dunyadeeda noo hagaaji yaa rabbul caalamiin ilaahu dulligan nasaara naga dulqaad ilaahu quluubta reer khaatuma isu soo dun ilaahu kuwa xunxuna nagu dhex jira ilaahu haddayna noo soo agaagmeen naga qabo ilaahu saasaanu kaa barin ilaahu wanaagga khaatuma istus ilaahu dulligan nasaaran duul kale u meeri ilaahu dulligan nasaaran duul kale u meeri ilaahu dulligan nasaaran duul kale u meeri wa sallallahu nabiyina maxamed salawaatullahi wa salaam faatix halka hal la baneeyo wadada baneeya wadada xareeraha u baydha